ولا تعجز عاجز كوا معي قفك بني آدم قال لما وحبا كل عبيد هذا الكسل والعجز بين هذا كسلك وقفك وهسي عدم الإرادة وقفك أن دونيس بالهين إنه حقب طبر ربين عجزكونا وقفك يربا إنه وحي قبطه لكن هدنا قابن كارلا وطاقلا عدم القدرة شقق كستو الله قبطه وحيد هذا لبضا شيء بو عملكو ككوبين إناد واحد دونيسيد iyo inaad awoodid markaasuu camalku kuu qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awooddo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh iyo wax kastoo ay qabtaan taswiif ku xumayo insha allah berraan samayn doonaa maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogaraamyo iyo barnaamij buu degaya رسول إن شاء الله ساسا يلي سنة كدنبه قرآن كان حفتنايا سنة كدنبه waxaan rabaa jaamacada بلس inaan kaga baxo إن شاء الله waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaas inaan galo waxaan rabaa kutubta inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku kaliya waa barnaamij afka ah amal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax amal isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangareynaysaa waa inuu yahay waxaad awooddo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwaddo waa riyo kalew dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad bilaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa arma dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa arma shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin نبي وحينا ليه احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز مرنا بها عاجزي ولا نبي عليه الصلاة والسلام صحابي وشقين شري أنس بن مالكها يا وحليه هاي أنا نبي وشقين يا وحبان مقلع يسقوا كعل علينا يوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال سوى كوع العلني يولا إله وحن كان مغان قلي ورورك يو البهارك يتيران يدي يمروك ده همي قوا وحصاص على وقفك ورورا مستقبلك ولا مدو بعده أو دبتنا قفك ورورا حزن قنا ووحي كتغي قفك وتيران يمروك الريبة إذا ولا بورور أما اللي بول البهار لكن waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tagay midna waa waxa soo socda nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay al-ajz wal-kasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegayna qofku inuu cadam al-qudra inuu xawoodi waayo ama in doonistuba ka dhibato doonistuba inay ka dhibato dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana u jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaawo intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sidaa awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa walaal baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaad qaban karin
jubni bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo dadka gaadhaynin anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati الrijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof actifa qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduuniya mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama wakhtigiisu khasaare ahayn ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika nebigu wuxuu tilmaamayaa wakhtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nebigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayayaa an yaksiba kulla yowmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayaysa min raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana waa midkaa yasuu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabbixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana dee 100 goor baad subxaana allah odhanaysaa iyo waxa laguu qoraya subxaana allah intay kaa qaadanaysa 100 gooroo subxaana allah waa less than 1 minute ka warran 1 daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxa meesha taalla markaa nebigu wuxuu leeyahy qofkaasi subxaana allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu 1000 khati'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cagsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan si awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxaa kaloo u bakhaylsan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysaad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaana allaahi haddaanad ajarkeeda garanaynin waa aqoon darra ku haysataa aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo haddaad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof laysiyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidnu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba si aan aayadda qur'aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur'aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tabardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacaa allaahu ghuraaban yabxahu fi اlardi liyuriyahu kayfa yuwaarii saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuuna midla hada alguraab fawaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu u galo maydkii walaalkii buu garan waayo ilaahay baa wuxuu u soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo
وهلان هلا أما وعلى على وحلي يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب هلا جاي وكاليه ما وحن كليتا ما وحن كوحتر حماضة إن أنتكها سكلا نقضة إذا جهلي وتكو معلن كاغدي dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska farfadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen jahliga fadhiisiyay beersi loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiyay jahligu marka dadka uu duleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwwa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة اللي شيء aqoonta kamida ساوغيت أيو النبي عليه الصلاة والسلام نقل دردارميا استعن بالله ولا تعجز إلهي كالميسو واستعانة هذا إلهي كالميسو أنا عاجز